xukuumadda hadda jirta madaxweyne cabdullaahi maxamed farmaajo uu hogaaminayo inay la soo baxday 3 sano oo ay jirtay inay isku dayday inay ka leexato dariiqii dadkan ku heshiiyey oo ugu horreysay inay la dagaalanto nidaamka federaaleynta ahaa dalka oo ay dhammaan qawaaniintii iyo waxyaabihii u baahnaa in laga wada tashado ee hareer bartay oo ay dhagaha ka furaysatay in ay ka garnaqasato ama ka wada hadasho sidii khayraadka dalka loo qaybsan lahaa sidii nidaamka awoodaha loo maarayn lahaa sidii dadka mas'uuliyiinta ah ee maamulada xukuumad la isku soo dhaweyn lahaa sidii midnimada loo ilaalin lahaa taa waxa ay ku bedeshay inay hawl ka dhigato inay la dagaalanto maamulada dalka waxaad ogtihiin wixii ka dhacay maamulada dalka aan rabin inaan aad ugu noqnoqdo waxyaabaha hadda u dambeeya oo socdana dadka Soomaaliyeed ay ka dharagsan yihiin waxaad ogtihiin ciidamadii loogu talagalay in lagula dagaalamo argagixisada iyo nabadiidka iyo dadka aan doonayn dawladnimadii xasiloonida ee dalalka ay noo tababareen in meelihii deganaa oo xasiloona ee lagu qabsanayo waxa ka socda gobolka Gado oo ah magaalooyin xasiloon oo shabaabka ka xoreysnaa magaalooyinka Doolow balad xaawo luuq in ciidamo lagu daadguraynayo ciidamo la yiraahdo haramcad waxyaabaha yaab kale waxa weeye haddii haramcad loogu talagalay inuu ariga reeraha uu dawacada cunaysa ka cunana oo shabaab loogu talagalay tale ahaan lahayd laakiin haramcad xoolihii iyo dadkii cunaaya runtii waa arrin aan fiicnayn suurad xun ka dhalinaysa Soomaalida dhexdeeda u abuuraysa nidaam dadka Soomaaliyeed ay ka soo doogayeen oo ah in qod caaradiisa la isku maamulo arrimaha noocaas runtii waxay walaac gelinaysaa Puntland sida hadda wax ku socdaan hadday ku sii socdaan waxaan halka marka jeclahay falanqaynteena oo qoraal iyadoo soo